waxaa jira waxyaabo lagu kabo camalka aynu u baahanay inaynu ku kabno oo waxay yidhaahdaan istikfaartu ilaahay dembi dhaafka la weydiistaa waa laba shay had iyo goor markaynu istikfaar sheegayno dembi dhaaf baynu ku fasiraa laakiin ma aha af carabi ahaan uu ka ballaadhan yahay say culamadu sharxaan waayo waxay leeyihiin istikfaartu dembi aad rabto in lagaa dhaafana waytay waxay kaloo tahay bay yidhaahdaan jabraanu naqs iyo ictidaarna way tahay bay yidhaahdaan camalkaaga wixii ka dhinayo haddaada ilaahu intaasaan awooday adigu ii dhammaystir iyo ictidaar tusaalaha bini aadamku wax ku fahmaayo tusaalahan ku siiyo qof abaal kugu leh ama xaq kugu leh ama aada weyneynaysaa kuu yimi markaasaad rabtaa inaad wax siiso casuuntid wax u qabatid laakiin haddana waxaad dareemaysaa abaalku qofkani kugu leeyay iyo waxanaad wadaa inaanay isu cuntamin inaanay isleekayn adigu intii aad awooday waad la timi laakiin abaalkii lagugu lahaa maad gudin maxaynu ku darnaa markaa cudurdaar baynu raacinaa waxaad tidhahdaa dee wejiga waxaan aan ku siinaya wax kuu cuntama maaha ama wax kuu qalma maaha ama erayadatan maxaynu uga jeednaa adaana wax bixinaya haddana erayadan waxaad rabtaa inaad muujiso abaalka lagugu leeyay inuu ka weynaa waxa aad bixinayso walidalik baad eraya ku daraysaa iyo kalimaad fiican adigoo raba inuu qofka kale aqbalo cudurdaarkaaga oo inta tan uu arko nin abaal gudayo un atleast inaad tahay tamarta meesha ku dhigtaye nin raba inuu abaal gudo inaad tahay istikfaartu markay cibaadaadka daba dhacdo waa sida tan oo cibaadaadka iyo daacaadka waaweyn ee layna faray oo dhan waxaa daba yaalla istikfaar maalan xajku waa arkaanul islaamku ka mid yihi cibaadaadka la sameeyo kuwa ugu waaweyn buu ku jiraa goob la istaago goobaha ugu waaweyn ee bini aadam ilaahay caabudaya istaagana carafa ka mid ah markaad carafo istaagtay ee ilaahay maantoo dhan weyneynaysay ee baryaysay baa ilaahay wuxuu ina yidhi uma afiiduu min xaysu afaada annaas wastakfiru llaha in allaha gafuuru raxiim istaaga baa ilaahay yidhi halka dadku istaagayo qurayshi waxay odhan jirtay xaramka annagu ka bixi mayno carafi xaramka way ka baxsanta markaa muna iyo intaan xaramkaanu joogaynaa waxaa la yidhi baxa oo taga halka dadku istaagayo oo weliba halkaa markaa istaagtaane soo dareertaane dib soo noqotaan waxaa camal samayseen oo dhan waxaa ku dartaan istikfaar baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala yacni xaj inagoo ku jirna baynu ka dabageynaynaa maxay istikfaar waxaa layna baray oo nabigu ina baray calayhi salaatu wasalaam salaada markaynu tukanno waxa koowaad aynu qabanaa waa maxay nabi maxamed markuu salaamo naqsado kow 3 jeer buu odhan jiray astaqfirullah 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 ma macsi buu samaynaya oo ka astaqfirulaysanayay maya salaad buu ku jiray laakiin waa maxay wuxuu leeyahay ilaahu xaqaagii weli maan gudin anigu intii aan awoodayay waan sameeyey waynu soo dadaallo weysaysanno soo kacnayo ilaahay hornimi ilaahay way soo taagnay intaynu awoodi karaynay waa dadaallo waa samaynay laakiin waxaynu rumaysannay marar badan baynu baxaynay oo qalbigeenu meel kale jirnay mar baynu waxaynu akhriynayna fahmaynay mar baynu adduun iskaga mashquulay haddana salaadaynu wadnay dabeetana waxaad leedahay ilaahu intaasun baan maanta awoodaya intaa iga aqba waxaad ka dabageynaysaa markaa maxay istikfaar markaad salaamo naqsatayba waxaad leedahay ilaahu xaqaagii maan gudanin istikfaartani waa ictidaar markaad raacinayso ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa kuwa jannada gelaya ina almuttaqiina fi jannaati wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum inahum kanuu qabla dalika muxsiniin kanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun ilahay wuxuu yihi kuwa muttaqiinta ah ee alle ka cabsaday aakhiro beero iyo ilo biyood iyo jannooyin bay leeyihin aakhidiina maa aataahum rabbuhum waxay qaadanayaan wixii alla siiyey baa la yidhi nicmo ah ayay aakhiro helayaan laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sababtu waa maxay inahum kanuu qabla dalika muxsiniin adduunkii markii ay joogeen ayay ahaayeen dad ixsaanka sameeya muxsiniina kanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun habeenkii in yar bay seexan jireen baa ilaahay yidhi u fiirsa haddaba erayga la daba dhigay wabilasxaari hum yastakfiruun waqti suxuurka markay gaadhana istikfaar bay u fadhiisan jireen habeen oo dhan intuu cibaadaysto
ayuu wuxuu ku gabagabaynaya salaadiisii istighfaar uu leeyahay ilaahu intaasaan la imi xaqaaga samaan gudanin waxaanaan sameeyey caawo dhan la soo jeeday ilaahu maaha adiga xaqaagii waxaad xaq u lahayd saa daraaddeed ayay istighfaarka dabageynayeen ilaahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow alle inuu keligii yahay ka xaq lagu caabudo masaladaa yaqiinso oo yeel oo wastakfir lidambika walilmu'miniin baa la yidhi ka dabagee haddaba ayuha alaxiba masalada istikfaartana waxaan ku khatimayaa nebi maxamed 23 sannadood buu jihaatamayay oo ilaahay diintiisa wax waliba ku soo gaadheen oo loo dhibay oo loogu hijrooday oo dagaal nooc waliba uu soo galay oo siiradan aynu akhrinay tirada badan leh ay soo marto 23 sano kadib aakhir suuradahaan nebi maxamed ugu soo degta bal waxa alla faraya u fiirsa haddaba suuradii ugu dambeysay qur-aanka iyadoo suuradoo kaamila soo degta weeyaan waa suurati nasr ilaahay wuxuu ku yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idaa jaa nasru llahi walfatx ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا markaad aragtay uu ku yimaado baa ilaahay yidhi ilaahay guushiisu marka hore nasriga iyo fatxiga baa ilaahay baa siiyey waa min nicam illaah ilaahay guushiisa iyo furashadiisu markay ku timi aad maka iyo adduunba furatay oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja oo aad aragto dadka oo diinta koox koox u galaya waagii hore islaamku uu bilow ahaa nebi maxamed isagaaba la caydhsanayay kadib qof baa qarsanayay qof baa intuu islaamu odhanayay orad reerihiinni qabo barigaad maqasho waa guulaystuunii kaalay saasay ku socotay ilaa iyo ay soo gaadhay markii dambe qabiile in loo islaamo afwaaj koox caamil wufuud nabiga calayhi salaatu wasalaam qabaa'il dhan oo maca salaadiintoodii oo waayeelkoodiiba wataa u yimo soo islaamay haddaba markaad sidaa aragta maxay samee baa ilaahay ku yidhi aadanaha aan rabbigood xoog u qadarini markay guulaystaan maxay sameeyaan badhbadhaadhna bay qaadaan dee maalinta xorriyaadka maxaa la sameeyaa muruqaa la muujiyaa iyo waxaad xoog leedahay waa qofka oo isla weyn wuxuu qabtay ay la weyn tahay markay calanka helaan balkaalay canabay bay qaadaan calanka waa la caleen halkuu qofku isdhul dhigi lahaa odhan lahaa ilaahu adaa guushiiyo nasriga ay siiyey ayuu kibir ka qaadaa laakiin nebi maxamed waxaa la leeyahay markaad guulaysatay maantuu maka furanaya guulaysanayay neefku fuushanaa isagoo ku dul sujuudsan oo madaxu hoos u laalaaduu nebigu soo galay calayhi salaatu isagoo mutakabiroo isweynaynaya muu soo gelin saa daraaddeed ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho ee aad aragto dadkoo diinta koox u soo gelaya maxay samee baa lagu yidhi fasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku maraya ku dheehaya ilaahay xamdigiisa tasbiixdu waa maxay tasbiixdu waa tanziih waa ilaahay oo waxaan u cuntamin aad ka nasahayso ilaahay oo aad xumo iyo ceeb leedahay waa ka hufan yihi waa ka dheeriye naqsi male ilaahay taxmiidu ama alxamdu lilah ana waa maxay waa ilaahay oo aada ammaanayso bikamaalihi wa kamaali afcaalihi aada weyneynayso ku weyneynayso acmaashiisa fiican idan waxaa la yidhi markaad guusha aragto ee dadku diinta koox u galaan ilaahay weyneeyo xumo ka huf ammaan oo ammaantu xaq u leeyahay ammaan adiguna wixii aada camal la timi wastakfirhu inahu kaana tawaaba ilaahay u toobadkeen baa la leeyahy oo istikfaarso wixii ilaahay waan xaqaaga ka gaabiyey wixii camal tuurla aan la imi waxaan kuu cuntamayna aan sameeyey ilaahayow iga aqbal dheh qofka muslim haddii nebi maxamed sidaa lagu leeyahay innaga maxaad u malaynaysaa marka